بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wacan daawadayaasha ku xiran bartan caalamiga ah ee Garadisa Tube. Nolol baa joogtaan waqtiga hadii wacnaada ku soo dhawaada muuqaal cusub. hooyo kasta waa haliyay horumar u horseedi karta hanadkeeda. Guriga ayuu soo galay waxa uu warqad u dhiibay hooyadii. waxa uu ku yiri macallinkayga ayaa warqadan ii soo dhiibay. wuxuu ii sheegay in aan u dhiibo hooyaday oo kaliya. kolkii ay hooyadii warqadii kala furtay waxa indhaheedii ka yimid ilmo badan. waxa ay warqada kor ugu akhrisay wiilkeedii. wiilkaagu waa cabqari aad u maskax badan. iskoolkan aad buu ugu yar yahay mana haydno macallimiin sare oo tababari kara. fadlan adiga waxbar ayaa ku qornad warqada. wuxuu hindisay oo adduunku ku soo kordhiyay waxyaabo badan waxaana ka mid ah nalka aan ilaa maanta isticmaalayno. wuxuu ahaa Thomas Edison. wuxuu noqday mid ka mid ah hindisayaasha dadka wax cusub soo saara ee ugu sarreeya caalamka. haddaan taariikhdiisa kooban aan eegno, Thomas Alva Edison waxa uu dhashay 1947 ilaa 1931. waxa uu ahaa ikhtiraacka Mareykanka u dhashay oo salkiisii ka soo jeeda waddanka Holland. waxaana uu ku dhashay tuulo lagu magacaabo Milan oo ka tirsan gobolka Ohio. yaraantiisii waxba kamuusan baranin, waxaa xanaanaysay hooyadii. kadib Thomas waxa uu muujiyay fariidnimo iyo maskax badani, halkaas oo uu caalamka ku soo kordhiyay waxyaabo badan oo maanta la'aantood aan la joogi karin. waxyaabaha uu Thomas Edison alifay waxaa ka mid ah laambadda, mikrofoonka, madbacadda maanta wax lagu daabacdo. waana qofkii ugu horreeyay ee sameeya sawirada maanta loo yaqaan kartoonka ee TV-ga ka soo baxa. waxa uu Edison alifay in ka badan 1000 shay. waxa uu guursaday 2 jeer. naagtiisii hore waxa ay dhimatay iyadoo yar, waxaanu dhalay 6 caruur ah. waxa uu dhintay sanadkii 1931. waxa uu ka bilaabay shaqada iibinta joornaalada oo uu ku iibin jiray barta ay tareenadu ka baxaan. waxa uu arkay oo soo jiitay daabacaadda iyo sida wax loo daabaco. u samray waana bartay sanadkii 1962 ayaa waxa uu bilaabay in uu soo saaro jariirad ugu magac daray Grand Trunk Herland. wax kasta oo uu sameeyana waxaa mudnaanta koobaad lahayd hooyadii Marwa Mary, taasi oo ahayd macallin bara dadka suugaanta iyo gabayada iyo sida wax loo akhriyo. hooyada aadka u fiican ayada wiilkeedii wax bartay kadib markii macallimiintiisii dugsiga soo eriyeen iyagoo ku sheegaya dabaal aan waxba baranayn. hooyadii waxay u jeclayd si aada. waxa kale uu ka soo shaqeeyay goob laga diro telefoonada oo ku taala busaajada tareenada, taas oo u sahashay in uu sameeyo aaladii ugu horreysay ee telegraph ah. guula ayuu gaaray shaqadiisa kadib. waxa uu u guuray magaalada Boston ee gobolka Massachusetts 1876. halkaasi ka aasaasay xarun cilmi baadhis. waxaanu ku ikhtiraacay aaladda loo yaqaano photograph, kaas oo sameeya duubista codka. kadib 2 sano waxa uu ikhtiraacay ikhtiraacii ugu weynaa ee ilaa hadda lagu xasuusto, kaas oo ahaa laambadda lamp electrical component. abahantii waxa uu bedelay Edison waxyaabo badan caalamku. Edison ka hor laambad muu lahayn. sanado badan kadib, kolkii Edison hooyadii dhimatay ayuu maalin gurigii ku noqday. wuxuu eegayay alaabihii hore ee reerku lahaa. wuxuu arkay warqad isku laaban oo qaanad miis ku jirta. waa warqadii macallinka u soo dhiibay. wuu kala furay. waxaa ku qornaa wiilkaagu maskaxda ayuu ka jiran yahay waana fahmo daran yahay oo u ogolaan mayno inuu iskuulkeena sii dhigto.
wuxuu ooyay saacado badan. Wuxuu ku qoray xasuus qorkiisii Thomas Edison wuxuu ahaa ilmo maskaxda ka jiran oo damiin ah, kaasoo hooyo haliyey ah darteed u noqday abqariga qarniga. hooyadii warqadda sida ay tahay uguma akhrin, waxayna go'aansatay inay dhiirigeliso wiilkeeda intii ay niyad jabin lahayd. hadalkii hooyadii uu aaminay iyo dadaalkii uu la yimid ayuu ku noqday cabqari hindise aad u maskax badan. marnaba ha quusanin, si kastoo lagu niyad jabiyo ama lagugu tilmaamo qof aan isbeddel ama horumar samayn karin. ha niyad jabin, hana rajo dhigin. waxa ugu weyn aad samayn karto ama aad noqon karto waa wixii dadku ku oran jireen ma samayn kartid ama aaminsanaayeen inaadan noqon karin. hooyo kasta waa haliyey horumar u horseedi karta xanadkeeda. tanad dhashiy haliyadaad istiya naaskaad habsiyo horseedkaaga waxaan la huri karayne. allah subxaanahu wa tacaala caafimaad iyo cimri dheer ha u siiyo inta hooyadood u nooshahay, inta ay ifka uga tagtay oo ay kasii horumartayna rabbi subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. qormadii koobneed aynu kaga hadlaynay abqarigii weynaa ee Thomas Edison intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. fadlan muuqaalkan la wadaag asxaabtaada, haddii uu ku qanciyana like saar oo share leh. commentiga iyo aragtidaadana waa noo muhiim oo waa noo dhiirigelin. sidoo kalena channelka ha ilaawin inaad subscribe taabato. mahadsan. muuqaalkan lacayna aan ku kulmi doono waa anigoo ah Barre Ismaaciil oo idinkaga tegaya ismaqal aragti dambe oo xiiso badan. intaad hooyo nooshahay hambaliyo salaam baan hanti kaaga dhigayaa. amrashiyo xaq dhowr baan dusha kaa huwinayaa. hooyo dhimashadaaduna oogayga weeyo, weligay hoggaagan ka dulheesiyaayo. igii laabtan ugu haynayaayo. engel baan u xidhayaa intaad ka duushiyo gidi habar dugaage. ifka hiba ku noolo aakhiro halkii iroon. iska hiba ku noolo aakhiro halkii iroon. hooyo aakhiro halkii iroon. hooyo aakhiro halkii iroon. hooyo aakhiro halkii